macallinow inagu haddaan Soomaalina waxaan nidhi quraan lix arrimood baa lagu baran karaa waxaa ka mid ahaa quraan waxaa lagu baran karaa hooyo qalqaalisa hooyadu hadday ilmaha subaxdii intay diyaariso hooyadaad la kulanto wayra tira ilmaha subaxdii si fiican u diyaari hooyadu ilmaha subaxdii haddii inta iyadu salaada subax u toosto ay tukato oo si fiican u qureeciso si fiican ugu labisto ay madaxa u soo shanlaysa tiraahdo hooyo khayr allaha ku siiyo intay dhunkato orado cashirkii aad nin khayr baa tahay waxbaad ka keeni anaa huba macallin fiican baa kuu dhiga ay la soo dardaaranto waad garan kartaa ilmaha waxa uu istaagay nisbi ka mida moraalkiisii laakiin hadday iyadoo jiifta intay lugta ugu tilmaanto tiraahdo balaaya kugu dhacday meeshii baas baa tegi baa meel lacagtun lagu urursada alla anigu meesha hadda necbiya warbalorad kitaabkii meelaha ka dayo kitaabna garan mayno orad meelaha ka dayo warorad marun baad wax cuni doontaa ee na dhaaf oo iyadoo lugta ugu tilmaamaysa ay soo saartana ilmahaasi inaanu cashir fahmaynin waad og tahay oo aanu waxba baran karin waxaa la yidhi hooyo qalqaalisa aabba quuris leh maalin walba inta ilmahaaga la soo saaro in la yidhaahdo warorad fiigii la kaalay meeshu dee fii bay ku kala socotaa na dhaaf iyadana waa moraal dil weey aabba quuris leh hooyo qalqaalisa loox qaad weyn waagi hore de loox baan quraanka ku dhigan jiray macallin qaariya walad qayla dheer ya quraanka lagu bartaa baan oran jirnay macallinka qaariga ee codkiisa la maqlo waladka qaylada dheer ee quraanka markuu la ximinayo markaaba qofka dariiqa mariba uu maqlay warkaas suu wuxuu akhriyo muxuu ahaa saaka war macallin kuwa kalaaba ku maqlay war macallin war kaamaad ka qabatid ka saxdid macallinku inuu tahaawun samayn baa la rabaa عجز إنه كم مقام الربا إنه قرآن كلا خلده هي استهانيسن وفضوضيسن بالربا وحيابا سينهرتكم ما يجرنا قرآن كوحوها مهنا أي ندتك كجسوا عنه قرآن كوحوها وحدتك الصومالية اللي جوية قانة وحبرته قرآن كوحوها وحينا وحك لبرن إلى قرآن كبرنه نحن نقول جبينا يا جباد مصرية وهو مسلمة يا سجتيرد وحيكان جرت قرمدا بدوبي كل سجال بقولية تضباطنات كيف يكاهيد تضباطني اللحدي وحي قرطي كتاب ليدا هذا جبادة وحي ليدا الدكتورة زهيرة سكري وحي قرطي كتاب ليدا هذا الإسلام الثوري كعدون كإسلام كعالم ككسمي وحي تري مركان قرمدا بدوبي لا شقينا سجتير كجودها أي آد وحلام مراجعين جريبي تري جمستياشي يا وحي سمايين يسوي وحق جمستين يعني ما كان رأي ربع قرمدا بدوبي هدي له جودها وقال هذا عدان ككلية يعني نقول ضبط صعد بين نسكنه waxay ii sheegeen bay tiri in sababa madaaris badan oo Afrika ka jira oo Quraan loo xiray oo sababihi maxaan ku dhahdaayay tacliinta maxaan ku dhahdaayay aan marka diiniga ku dhisnayn loo saramariyay oo diiniga loo hoosaysiiyay inay kamid ahayd fikrad la qaatay oo ahayd dadkaynu gumaysanay oo dhan saadaynu u nahay ilaa dadyowga muslimka mooyee war dadka muslimka maxaynu saadiye ahlu sharaf inoogu arkilayihiin oo nin iyaga kalituna inoogu arkaan hatta haday kuwa adduunka ugu liitayihiin gabadhaasi waxay tiri waxay yiraahdeen sirta qofka muslimka inuu cimlaaq yahay oo maskaxdiisa mooyo kale aanu qaadan karin badiyaba waa quraanka baa leeyahay quraanka waxa ku jira baa la yiri muslimiintu ilmaha waxay baraan isagoo 7 jira ama 9 jira ama 8 jira wax kala baran waxa la baraa kitaabay ku jirto konton kun oo kelmadood oo mufradul kalimaha oo kala macna duwan waa quraanka kariimka awey konton kun oo kelmadood oo luqawiya ku jirta bay tiri ilmihi marka cimlaaq mu noqonaya abqari qofaan dadkanba waxba u arag bu noqonayaa maskax ahaan iyo cilmi ahaanba u bislaado naadija gabadhaasi marka waxay sheegtay inay taasi keentay in azhar ninkii ugu sareeya iyo madaarista ingiriisku lahaayeen masar azhar ninka ugu sareeya iyo madaarista ingiriisku lahaa ardayga thanawiga dhiganaya inuu ardayga thanawiga dhiganaya ka mushahar sareeyay ninkii azhar u sareeyay ingiriiska oo kale saas ula dagaalameen bay tiri in tacliintoodana la qiimeeyo iyo waxyaabahan maadiga tan quraanka iyo diintana aad hoos loogu dhigo cagta hoosteeda la galiyo laakiin waxa jira faransiiska oo kale iyo talyaaniga waxay ba adeegsadeen madaarista quraanka in toos loo xidho oo la soo xidhay gabigeeda Zuhayra Sukri kitaabkeeda marka taasay ku sheeg ilmahaagu wuxuu macna ku leeyahay maxay wuxuu macna ku leeyahay kitaabka quraanka fahamsiinta aad fahamsiiso